دكتور حسن الشيخ علي ورسمه وكميد علماء واوين gobolka Togdheer oo maanta khudbada Jimcaha ka galay masjidka Saalixiyada oo kamid ah masaajidada kala duwan ee ku yaala magaalada Burco ayaa waxa uu sheekhu ku dheeraaday isla markaana si weyn khudbadaasi kaga hadlay dhibaatada uu waqti lumis ku hayo bulshada sidoo kale sheekha ayaa si weyn bulshada ugu wacyigeliyay dhibaatada uu leeyahay hadalada maalayaaniga Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame ayaa sidoo kale bulshada u soo jeediyay kala duwan kuwaas oo tilmaamaya kobcinta aqoonta iyo sidoo kale qorsheynta waqtiga intaba sheekhu arrimahaas ka hadlaya waxa hadaladiisa kamid ah walaalayaal waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta ku amaanay ee kamida dadka liibaanay tilmaamahooda kamida dadka firdaws galaya jannooyinka qaybaha ugu sareeya waxa kamida tilmaamahooda dadku inay ka jeestaan waxyaabaha maala yacniga haday hadal tahay iyo haday tahay ficilba wixii dan aanay kuugu jirin inaad ka fogaato ama aad ka jeesato waxa iska fudud walibana bulshadeena aad ugu badan waxaynu nahay bulsho hadal baynu nahay afmaal baynu nahay afka ayaa la isku waraystaa fadhi ku dirka ayaa badan inta wax akhriyaysa iyo inta hadlaysa ayaa badan inta wax dhagaysanaysa iyo inta hadlaysa ayaa badan waxana Allah subhanahu wa ta'ala laba dhagood buu ku siiyay hal afna waa lagu siiyay si waxa aad maqlaysaa uu uga bato waxa aad ku hadlayso maanta waynu arkaynaa maqaaxiyo siday u badan yihiin ee loo hoganayo loo fadhiyo ee fadhi ku dirka iyo hadalka maala yacniga loogu hayo golayaasha kala duwan meelaha la isugu imanayo waxa dadku ay isdhaafsanayaan ama ay ku sheekaysanayaan dumarka hadalkooda daa ragna waa shaah dumarna waa sheekabay Soomaalidu yiraahdaan maxaa laga sheekaynayaa waxa laga sheekaynayaa hebel muxuu sameeyay iyo hebel hawshaas uu qabtay hebel waa safray hebel xaaskii way saayaan hebel waa furay hebel waa duday hebel gurigeedu waa sidaas hebel waa sidaas waxyaabo dadka ku saabsan oo ka hadlaya danay aanay ugu jirin baa lagu mashquulsan yahay marka in yaro dadka kamid meel isugu yimaadaan waxa buuq iyo sawaxan dhacaya ama waxa weeye qabiila madaxa la isu galinaya ama xaafad ba madaxa la isu galinaya ama urura madaxa la isu galinaya iyo waxyaabo lamida waxa soo dhawaxa keenaya dibdhaca waxa weeye bulshadeena haysta maanta dawladaha horumaray hadaa tagto kumanaan baa isu imanaya codna laga maqli maayo Allah subhanahu wa ta'ala markuu tilmaamay dadka wanaagsan ilaa dhowr tilmaamood buu u sheegay tilmaanta labaad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay maala yacniga inay ka jeesanayaan dadka wanaagsan ibaadur rahmaan markuu Allah subhanahu wa ta'ala ka warbixinay wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay meelaha macsida ama munkarka lagu hayo inaanay soo xaadirin oo ka soo qayb galin markay soo maraan meel xumaan laga hadal hayo ya hadal maala yacniya way dhaafaan oo waxa weeye dhag jaraq uma siiyaan Allah subhanahu wa ta'ala baa halka gaarsiiyay waa laga yaabaa dad badan inay fududaystaan masalada inay sahashadaan waxa aad iyo aad walaalayaal muhiima in horta aqoonta la kobciyo waayo aqoontu waa ta keenaysa caqligaaga caqli in lagu daro waa ta waxa danta ku ah adduunyo aakhiro ku kala cadaynaysa qofku aqoontiisa inuu kobciyo ama mid nololeed ha noqoto ama mid Allah subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo ha noqoto oo jahliga laga baxo umminimada laga baxo dad badan waxa ku kalifaya la yaqra wala yaktub waxna ma akhriyo waxna ma qoro taas waxay keenaysaa afkiisa inuu maalo oo waxa weeye uu iska sheekeeyo ama sheekooyinka maala yacniga uu dhageysto qadiyada labaad waa inaad qorshe leedahay waa inaad yool leedahay waa inaad han leedahay waa inaad damac leedahay waa inaad meel taargad iyo meel aad tiigsanaysa waa inaad leedahay taas waxay keenaysaa waqtigaaga inaad ka faa'iideysato waa illa waxa weeye ogaan maysid sida waqtigu uu ku dhaafayo subaxii markaad soo toosto hadii waqtigaagu ku qorshaysan yahay oo waqtigaagu ku habaysan yahay oo aad garanayso waxa aad doonayso maalinka noocaasa aad ogtahay bisha waxa aad doonayso inaad xaqiijiso aad ogtahay sanadka waxa aad doonayso inaad xaqiijiso aad doonayso 10 sano soo socda ama cimriga inta kaaga hadhay waxa aad qabanayso qofka noocaasa inuu waqtigiisa ka gaaraya oo waxa weeye wax ka qabsanaya waa illa hadii uu saacadaha iskala socdo iska dhex dabaalanayo qofka noocaasa waqti badanna waa ka lumaya waxa laga yaabaa halaag badanna inuu ku dhaco nabiga alayhi salatu wasalaam وحاوليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
falyaqul khayran aw liyasmut ninka ilaahay rumeeyay maalinta qiyaame maalinta aakhiro hadal wanaagsan ha ku hadlo ama ha iska aamuso ummadaha waxa lagu qiimeeyaa ficil baa lagu qiimeeyaa hadal laguma qiimeeyo waxa ay qabanayaan waxa ay qabsanayaan afcaasha ka soo fulaysa tan noocaasa dadka saameyn ku keenta hadalka taasiirkiisu haddii uu wanaagsan yahay saameyn buu leeyahay laakiin hadal badan oo aynu daldalaynaa dambina waynu ku kasbanaynaa waqti badanna waa ku luminaynaa ee waxa weeye carabka la ilaashado waa Kaafi Burco.